haween wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee qisadii taxanaha noo ahayd ee Silac iyo Saxriir Jacayl oo si taxanaad kaga dhageysanaysaan barnaamijka Caweyska Xubinta Faala Jacayl. qaybtii hore waxa inoo joogtay isbedel ku yimid inankii mu'min ahaa. waxaa laga dareemaya gurigiisa waxaanu noqday mid inta badan qolkiisa iskaga jira oon cidna la sheekaysanaynin. taasna ma ahayn dhaqan hore loogu garanayo mu'min oo waxaa bedelay cisqiga inanta raxmo u qaaday. aslanba qiimaha shay weliba waxa uu ku xidhan yahay inta uu ku jiro ee aad heli karto iyo sida aad u danaynayso. haddii aad haysatidna badanaa muhiimad gaar ah kuma laha. jacaylkuna waxaaba la sheegaa marka uu ugu daran yahay inay tahay kolka labada qof ay kala fogaadaan ee xuduudaha samayska ah iyo badaha alla ku kala baadhay kala taagan yihiin, islamarkaana ay aad iyo aad iskugu hiloobaan iskuna xiisaa labada qof ee lamaanaha ee nolosha doonaya inay isla wadaagaan. xiisaha ayaa ka yimaada in qof waliba qofka kale uu xiiso sheekadiisa, kulankiisa, aragtidiisa iyo weliba in uu mar waliba iska daawado qofka uu jecel yahay. mu'min oo ah wiil aad xariif ugu ah sida loo soo jiito hablaha waxa uu u gudagalay sidii uu soo jiidan lahaa gabadha qalbigiisa cisqiga ku beertay sida fududna laabtiisa guri kaga samaysatay. waxa uu bilaabay in uu la tasado saaxiibadiisa kuwa u dhow, islamarkaana uu kala tasado sidii inanta dhankiisa u ahaan lahayd. waqtigu waxa uu ahaa mid isguuraya, jacaylkuna maalinta ka dambaysahi waa uu ku sii siyaadayay inanka mu'min ah ilaa uu gaaro heer uu mu'min u dhibano u noqdo jacaylka aan indhaha lahayn ee uu inantii u qaaday. balse dhibka jira ayaa ah mu'min waxaa muddo dheer ku qaadatay ka fikirka qaabka ugu fudud ee jacaylkiisa ugu soo bandhigi karo raxmo oo ah gabadha uu dhibano jacayl u noqday. mu'min ayaa isaga cataabi jiray ereyada jacayl oo aad u xanuun badan, naftiisana ayuu ku sabi jiray dhegaysiga heesaha jacayl iyo inuu aqriyo ereyada jacayl ee xanuunka badan. waqtigu dardar buu yahay, mar kale door buu yahay, dahsoonaa mar buu yahay, dunida safarkeeda taxanaa, nolosha duubkeeda dheer. markii gurigaaga dugsaday dawaar adag buu furfuran, daryeel gogoshiisa labada dhinac baan ka dayay, dacalka midig baan baday, darafka bidix baan ku xigay. markuu seesku dumay dawaanka dhiladuu yeedh, durbaba cabsi baan dhex galay, dareen cidla laan dhex tegay, docdii wehelkaa bannaan, duruufahan yaab ka badan, dhararaha daal badan, xanuun daran baa ku ladan, naftay dab baa ku sidan, bogan dabaqasadan ku badan. cataawga inanka mu'min waxa uu ahaa mid aan dhammaad lahayn oo waxa uu ahaa waxa kaliya ee uu awoodo islamarkaana uu iskaga cataawi karo. mararka qaar isaga oo riyoonaya ayuu waxa uu ku riyoon jiray sida tan, weliba isaga oo ku riyoonaya in uu si toosa ula hadlayo gabadhii uu jacaylka badan u qaaday ee raxmo. waxaa tahay iftiinkayga, waxaa tahay muraayadii qalbigayga, waxaa tahay mustaqbalkayga maanta iyo beri weligeedba.
intay nolol jirtahay waxaad noqonaysaa qof laabteeda ku jiifanaya. Ha iloobin inaad tahay ruux ay nafteydu u riyaaqday oo dadka kale iga duwan. Xusuusnow, jaceylku waa dareen la isla sido oo qofka kale dhankiisa ka daadihinaya. Farxadeydu ugu weyn waa dhoola cadeyntaada iyo in aad mar waliba wehelkeyga tahay. Laakiin waxaas oo dhan ma aha waxa loo ogyahay oo keligay ayuu riyo dhalanteed ahi dhisaya. Run ahaantii kulankaaga markii ugu horreysay lama filaan ayuu ii ahaa, la joogaagiina waxa uu ii ahaa farxad, balse wax waliba sida qalbigayga uu rabo mar uun bay noqonaysaa. dhegeystayaal caawa waa naga intaa qisadii qaybtii saddexaad ee Silac iyo Saxariir Jaceyl. intaa ku kulmi doona qaybta xigtana nabadgelyo.